beesha Warday Cali oo ka mid ah beelaha dega Jubbooyinka ayaa cawasho ka dhan ah maamulka Jubbaland la wadaagay Wamo TV. sidoo kale halkani waxaa iskugu yimaaday haween, oday dhaqameed, waxgarad, siyaasi, dhalinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxgaradka beesha oo ka hadlay ayaa ka dhawaajiyay xuquuqtii beesha ku lahayd maamulka in aysan ka helin. aan u fadhinaa cabasho wax naga maqan male wiil iyo gabar iyo culimo iyo caamo intaba cabashaan u fadhinaa waxaan rabnaa dalka Soomaaliya xibin inaan ka helno kama aan helin mar hore kama helin haddana kama aan helin hadda waxaan rabnaa inaan ka helno annaga waxaan deganahay gobolka la yiraahdo Jubbaland hadda loo bixiyay ee Wamo gobolkaas aan ka soo jeednaa anaga asalkeena halkaas weeye aniga waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Kukubeen Goljaashuku ma yaqaan Axmed Madow iyo kulli iyo wax dadka deegaanka ma yaqaanaan waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed ee dalka loogu imaaday xibinta kule ayaana waxaan rabnaa xibinta inaan ku helno waxaan ognahay dad waa ma aan joogin waligiisba aan ku arkin in la leeyahay hadda xibinta asaga iska wasiir baa la siiyay in la leeyahay annaga ku dhalan ay joognana intaas oo qarni joogna 10 qarni ka badan joogno in maanta xibin aan ku leeyahay taas waxaan u aragnaa cadaalad darro inay tahay haygu kalifin inaad maanta isbaara bilaabo aan isbaara aan dhigto haygu kalifin haddaan waxayga nabadgeliye masaalaxad iyo waxaan rabo aan ku helo qabaa'ilada degan Wamo degan Jubbaland ma dhahay ani ma oranay Jubbaland sharaad u bixisay Jubbaland Wamo dadka degan xuquuqta ay leeyihiin haddaan helayo ahlan wasahlan waa isku soo dhaweynayna haddaan waayo waryaa dawladda hore markay dhaceysay 6 nabadoon baan lahaa iyo ugaaskoodii maxaa ii diiday maanta maxaa ii diiday intaad maanta dubataati ku haysato maanta xildhibaan ku haysato maxaa aniga hal igu koobe iyo laba igu koobe maxaa siiyay qabiile iga yar ba haastaan maanta 5 nabadoon 6 xildhibaan intaas xildhibaan haasta maxaa ii diiday ani in aan Warday dalka ay ka maqneen Axmed Madow asaga marqaati uu ka yahay dagaalka markuu ka qaadayay uu ka bilaabay Dhoble ilaa Mankismaayo uu socday maalintii looga kala cararay meesha xayal la yiraahdo wiilasha dagaalka ka soo saareen ee meesha oo ku haray markii ragga kale uu ka kala cararay inay Warday ahaayeen nin walba uu og yahay asagana marqaati uu ka yahay marka waxaan rabaa qabiila annaga naga yar tira ahaan naga yar taya ahaan naga yar ayaa meesha joogan oo xaq ay leheen uu siinahay annagoo tira ahaan dalka u joogno taya ahaana ciidamada raaca hore meel walba xara aad tagto oo intaas oo wiil Warday ama asaga staafkiisa ay wada yihiin sababta oo xaqeena noogu diidayo yaan rabnaa horta cadeynteeda inuu banaanka soo dhigo Axmed Madow marka waxaan leeyahay fadlan Axmed Madow walaal waxaan ka codsanaynaa inaad marka u horeyso xaqeena aad bixiso anigu waxaan ahay markaan isu sheego magacayga Cabdullaahi Sheekh Dool baa la yiraahdaa hogaamiyaha Warday xarayahan qaxootiga dhaab laga xukumo ninka hogaamiyaha oo baan ahay kulay maanta waa laga codsaday qabiilka aan ka dhashay waa iga codsaday inaan ka hadlo halkan waqti badan waa soo hadlaynay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa hadalkaynan mid daawo leh oo wax noo qabto inuu ilaahay ka dhigo ama dhiga furan ku dhaco inuu ilaahay ka dhigo marka koowaad cabasho way waxaan jeedinayno cid aan dulmayno ma jiro waxaan nahay qabiilka la yiraahdo Warday beelweynta Warday xarayaha qaxootiga degan kuwa dibadda jira kuwa Tanariifa degan kuwa Soomaaliya jira fikir aan ka wada meesanay waxaan ku hadlayno Axmed Madow inaan wada hadalnaan rabnaa wadanka xaq baan ku leen dawladda federaalka iyo adduweynaha waan ogeysiinaynaa waxaan rabnaa jiilka ku dhashay qaxootigan taariikhda qoyska aad ka dhalatay Warday u dhaxay aan garanaynin taariikhda aad barayso xun mugdiga oo dib ugu celinaysa kada taariikh san oo furan nin madaxweynaha tahay nin Jubbaland maanta loo doortaa tahay isin culama kugu yeeray haddaad ilaahay ka baqayso xaqa aan leenahay ragga agtaa ku dhimanay maalin baad dartaa u dhimanay xaqooda si qori ma wadano dagaalku ma socono cabasho way waxaan jeedinayno meel aan joogno cabashaan jeedinayna cabashadaas oo kula hor imaan doono waliba inaan kula fariisano kula xisaabtano rabno inta waxa ii dheer dawladda federaalka nin baan ugu mathalay una khayaan ninkaas annagu qaxooti iyo dibad iyo Soomaali dadkii la xasuuqaaneen xasuuq ku dhacay haddaan maqlay baarlamaan
وحبوا نكا نص يبتي إنه قبل كوردي وده شو نمط جاي مرة ما كان قدر سنة دبعت ماشي مالتي وقلة دبعت ما قبل دبعت أنتوا قلاني قارتي ديان أنلين هاي متجركم الضوضو ضد أنلين هاي الضوضو هذا أنا وشرحين وحنا كور قبل عناد وضعتوا أدي أحمد مدوب النكاس نكا وطأ جاك كوسي ده عناد أديته ما يلينو وكتب منينا النكاس مدورينو هكو شرف بيلين وهذا قيمة كهلي نكا كولا إيمانو عناد قعنت قبضته وبارماك هتكون درسوا بدر هالك هداد اسكت ده أرنتاس وحن كلية أنا مجا جود ومجا واس كمان تحريها قحوتيها أفكيك وحن كليه وكتب منينا أرنتاس ما أقولانينو لما سوقلو ما نكايرينو وأنا سلامة وسلامة تاي وأنا نكون مازنداي يفعل له قادرا أي قاضي أحمد مدوينك وجهده أحرتها أيضا إيه وردي هوران هدي هردي صد صقير ولا كبير رجع دمر ويسوق عنده رج يو دمر ويسوق عنه أجود هذا كم قونا سطلك ميل بالغا صار إن شاء الله بالله الكريم عرورتي دو إسقابن كران الله ربي هدانا ليهين مركا إسقابتانا أو إسكوت ليهين وحي كو قبصدا هذا السياسة وسيدة ويكاس كودات لكن أنا كامسة كوداي الحمد لله رب العالمين هذا بيروت كما دعيستي ورديد النبيه كما دعيسو ما فانسنتهي انا حسن عبدي ادم في لابالينها انا ادير برشا وناكسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دل دبد بدينا وان سلام هيا waxaan ku hadlayaa afka dhalinta beeshi wardi ee ku sugan xariyaha qaxootiyada dhadhaab waxaan salaan u dirayaa dhammaan magaca beeshi wardi waxaan baaq u diraynaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan diyaar u nahay in aan saxno qaladaad hore hor u dhacay macna kasta iyo si kasta iyo dib u dhac badan oo ku yimaaday beesha waxaan doonaynaa in aan helno xaqa aan ku leenahay dalka Jubbaland iyo waxaan doonaynaa in aan helno dhaxalka ay nooga tageen aabayaasheen awooyaasheen kaasoo ahaa dhulka waamo waa dhaxal innaga aan leenahay kaasoo ka soo gaarnay awowyaalkeen iyo aabayaalkeen maamulka Jubbaland haddii aan la hadlo madaxweynaha وان سلامة سلام كدب هدي أنا هاي بيش وردي ما شفتو معارض إنك أنا نكمل أنا هاي سمدوني نمانتر أنا نكمل أنا قنو ملعوينه هدي سيدا أنا ربنا أنا وينه إنه وحيد نقول يساعين ونجو قصبه إن أنا معارض كجرأ دونك كمل نقنو دنك كله وحن باق ودريا بيش وردي وحن ليه هاي دبودع فرح بدن وأركيسان وحي نوجو سبب xildhibaanada da'da ama duqeyda ama aan la sixin waxaan doonaynaa safartan in ay nagu matalaan dhalinyaro dayar ah wax baratay insha Allah ilaa idinkiisi laga soo kabsado dib u dhacyadii faraha badnaa ee nagu imaaday anoo ah nabadoon Cabdiraxiin Maxamed Macallin awasho ku saabsan waxaan wadanaa beesha wardi awasho ku saabsan baa wadanaa awasho waxa awashada u jeedinaynaa beesha caalamka يا عواشة وجدينا مركي لواد وح وجدينا إجت دولة إجت الصومالي هاجران يا وجدينا عواشة مركز الاتحاد وح وجدينا دولة صوماليا أو هذا هو ده مدحوينا فرماجة وجلزارة يا عواشة وجدينا وح عواشة وجدينا مدحوينا جبلين أحمد مذوبي يا عواشة وجدينا النوعة بيش وردي عواشة عجزيرين الوحاوي حقوق بانغا مقان حقوق تدلك عن كلهن يا مقان دلك حقوق عن كلهن مقان وحيكون مقان تهي دولة فدرال حقوق عن نوع مقان وحا حقوق عن نوع مقان تهي جبلين مدحوينها أحمد مذوبي حق وام عن كلهن ما أنا كهلين ما لقوا نروح حسين مركا شركة ما أنت ماشى شركة مرتيات كماشى الأسبوع ما ذا وعواشة كوسابسن باش وردي إن أن كهله جبلين إن أن كهله حقوقته أن كلهن حقوقته أن كلهن جبلين كما هيسنو جبلين عند لو ما ذا وأنا باش وردي وامو باش وامو لبح دوا أنا عدكو أفتر سكرت وامو ملها وباش وردي أنا كهن مركا أحمد مذوبي حقوقتي أن كولهن وان كاغا فدنا حقوقتي أو حق أن كولهن أدي كمبرير حقوقتي أنا إسكاله حقوقتي أن لهن يعرفنا إن هلو علي ناصر وامو تي في حرونك قهوتي داداب كينيا